32 xul oo kartidoodu xirfadood ku soo gaaray kaalintan ayaa loolan ugu jira hanashada koobka labeenta oo ah kubadda cagta adduunka. waa dhacdo taariikhi oo bogoga hore kaga jirta sooyaalka hidaha iyo dhaqanka wadamada qaar. mid ka mid ah ciyaaraha loogu daawashada badan yahay dunida. dhambalkiisii 21aad ee ruushku martigeliyeyna waxaa daawaday in ka badan 3 bilyan oo qof. dunida dadka ku nool kala badhkii fajac ayay ku noqotay qolyihii qiimaynta waday. dowladda Qatar oo doorkan soortay ayaa cududeeda marada ka faydaysa oo ku faanaysa muruqeedu intuu leegyahay. dacaayadii iyo dhaliishii angeedka loogu soo gabanay gaaladu ku haysay dalkan yar ee muslimka ayaa kor u qaaday heerka daawashada koobka adduunka. waxaanay gaadhaysaa 5 bilyan oo qof daafaha dunida oo dhan. malaayiin qoys ayaa shaashadaha waaweyn guryahooda ka dhuganaya xulalka ay taageersan yihiin. kuwa garoomada soo buux dhaafiyeyna way xabeebsadeen siday codkooda sare ugu lalinayeen. haddaba qoysaskaas miyaanu ku jirin mid ku falnaaday kubadda cagta, mid dareenkiisa iyo dubaaqiisa calmanayaan inuu cagta geliyo kubaddaas, mid u hanqaltaagaya inuu marun xirfadaas ka dhigto iftiinuu ku meelmaro ilayskiisa, dhex taagan kumayaal kun oo qof miiska guddoonsiinta abaalmarintan qiimaha iyo qaayaha badan, mid ku riyooda inuu laabta geliyo koobkan dahabka ah ilaa yaraantiisii sida aynigii, ilmo korayo oo kaalin gala, gu'yaal badan kadibna ku biira ciyaartoyda sumcadda kule dunida, ugu dambeynna ku warhelay isagoo dhex taagan mid ka mid ah garoomada moondiyaalka adduunka. waxay la tahay natiijo cudoon uu xaqiijiyey sanado badan kadib, qoyskiisuna ay shaashadaha ka daawanayaan libtan uu hantay koobka adduunka. waa tartan uu ciyaartoy kasta ku hamiyayo inuu marun ka dheelo, kanshadaas 4 sano mar soo martayna ay mudan tahay si quman inuu uga faa'iidaysto. ku soo dhawaada sheekada ciyaaryahano sumcad ku yeeshay koobka adduunka. dheemankii maxaa helay? ciyaartoy ciidaas ayaa xidiga ku noqday koobka adduunka oo ay tartan u soo galeen kooxaha dunida ugu qaalisanay saxiixooda. xirfadooda ciyaaryahanna waxaa qalin qurxoon ku daabacay koobkan. haddii aanu midmidh u tirinana ka gayoon mayno ilaa beritoole, balse waxaynu muuqaalkeenna kaga hadlaynaa ciyaaryahano moondiyaalku dunida baray. haddana kaalintii iyo tayadii xirfadooda boolasha loo furay, kooxihii loolanka ugu jiray ee soo ibsadayna ay ku seegeen dhaqaale tiro badan. haddaba maxaa isbedelay? sanadkii 1994 hogaamiyihii kooxda kubadda cagta ee Tottenham, Osvaldo Ardiles, ayaa ku dhawaaqay ciyaaryahan cusub inuu la soo saxeexday oo magaciisu yahay Ilaydo Matrisco. Ilay waxa uu ahaa ciyaartoy garabka uga dheelayay xulka Romania koob adduunkii 1994. qaab ciyaareedkiisuna soo jiitay tababarayaasha dunida. ugu dambeynna Spurs ayaa ku guuleysatay saxeexiisa. 2 xilli ciyaareed oo uu ka tirsanaa kooxdan ayuu u saftay 20 kulan oo kaliya. 5 gool oo uu dhaliyay iyo 2 uu caawiyay ayaa iskoorkiisoo dhan ahaa. ma yahayn wax u dhow waxa laga filanayay ciyaartooygan ka dhex iftiimay moondiyaalka. waxaa laga yaabaa sheekadan inay yar durugsan tahay. waxaa jira 2 sheeko oo u soo yar dhowaa laxanka tan hore. koob adduunkii 2002 iyo kubaddii qurxooneed ee xulka Senegal soo bandhigay. ma xasuusataa? haddii aanad xasuusin aan kugu baraarujiyay in ciyaartoygii xilligaa hogaaminayay libaaxyada Teranga uu ahaa Alxaaji Diouf. muu ahayn xidigii Senegal oo kaliya waxa uu ku jiray 11 ciyaaryahan ee ugu fiican FIFA World Cup. maxaa helay haddaba? xidigaas waxaa ku guuleystay hanashadiisa kooxda kubadda cagta ee Liverpool. 69 kulan oo saftay waxa uu dhaliyay 3 gool oo kaliya. mana uu soo bandhigin waxa uu ugu adeegay Senegal koob adduunkii 2002. dibna umaynaan arag sheekadiisa daayo muuqaalkiisa. qisada labaadna waxaynu ku calaamadinaynaa Cleberson. waa ciyaartoy aydan garanayn badidinu, balse qoortiisa ay suran tahay biladda dahabka. isla koob adduunkii 2002 ayuu u saftay xulka Samba. magac iyo meeqaam wanaagsan ayuu ku dhex yeeshay ummadda kubadda cagta xiisaysa. 3 kulan oo kaliya uu ciyaaray xulkiisa. waxay lamaane kubadeed oo heer sare wada noqdeen Gilberto Silva. ciyaartii kama dambaysta ee koobkana waxa uu ahaa xidigii waxba laga qaban kari waayay. markii uu dhamaaday tartankii koob adduunku, waxa la saxeexday shayaadiinta cascas oo uu haystay Alex Ferguson. saxiixiisuna waxa uu noqday mid ka mid ah heshiisyadii ay ku fashilantay kooxdu. bil kasta waa koob adduun. sahanka ay dirsadaan kooxaha kubadda cagtu waxaa la gudboon inay xilli iyo goor kasta u dhug yeeshaan daayarka isbeddelka cajiibkaa samaynaya ee hibada leh, oo ay ka kaaftoomaan hilaadinta tartankan 4 sano oo mar la qabto. sanadkii 2018 iyo koob adduunkii ay marti qaaday dowladda Ruushku, waxaa wargeyska New York Times uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay koobka adduunka. marka ay kulmaan xidigaha adduunku, sahamiyayaashuna way indhabeelaan. qorshayaashii hore loogu talagali jiray marka uu moondiyaalku bilaabmo
waxaad moodaa in laga niyad digay oo aan sidii hore loogu baanayn. ciyaartooy badan oo lagu hungoobay ayaa sabab u ahaa inaan laga xulan xidigihii ka soo muuqday koob adduunkii Ruushka. Filkay Koren ayaa garaad ugu darsamay oo 7 kulan ciyaaryahan isku muujiyay ayay u arkeen inaanu buunbuunin saahilin. dunidu kadeedka ay ku jirtay waayadii hore way ka baxday oo saamiyayaasha ciyaartooyda ee kooxaha iyagoo xafiiskooda kuduuda ayay la socdaan xidiga ifaya ee suuqa ku soo biiray. marka loo eego Ilay Domitrisco, kooxda Tottenham way ka feejigan tahay dambiga ay ku dhacday 30 sano ka hor. cidda suuqa ugu jirtana waxa ku filan kaliya inay telefoonkooda gacanta furaan oo ay daalacdaan ciyaartooyda ugu fiican xilli ciyaareedkan iyo da'yarka hibada leh. marka loo eego agaasinka suuqa ee naadiyada waaweyn koob adduunka mudnaanta ma siiyaan. xaaladooda iibka ee xilli ciyaareedka waxay ku lifaaqaan ciyaartooy muddo badan bandhig samaynayay oo ay u quudhaan lacagta ay la koodhaadhayaan. xidigihii ku tashan jiray moondiyaalka waxay ceeryaan geliyeen kanshadoodii xirfadeed. muxuu taraa tartankani? waagii hore waxaa koob adduunku farabaas ku hayay sicirka ciyaartooyda. hal gool oo uu dhaliyo inta tartankani socdo waxa 15% kor u kacaya dhaqaalaha lagu gadanayo. arrintanina ma ay ahayn mid ay u bogeen sahanka kooxuhu. tusaale waxay noogu filan Hervin Lozano ee reer Mexico. koor koob adduunkii 2018 qiimihii heshiiskiisa lagu burin karayay waxa uu ahaa 20 milyan oo guni. goolkii uu ka dhaliyay xulka Jarmalka ee koob adduunka waxa uu sicirkiisa ka dhigay 40 milyan oo guniga sterliniga. dhanka kale waxaa qiimo beelka suuqyada ciyaartooyda ee moondiyaalka galaaftay. da'yarkii akaademiyadaha ka soo baxay ayaa helay fursad ay isku muujiyaan iyagoo aan dan iyo hele ka galayn hibadooda sidii ay ugu soo bandhigi lahaayeen dhacdadan taariikhiga. muddo ciyaareedka ay helaan da'aadda 21 jirka iyo wixii ka yar ayaa noqotay 25,000 daqiiqadood. 10kii sane u dambeeyay 5 wareeg ee ugu waaweyn qaaradan gabowday. haddiiba ay jiraan ciyaartooy in naxariis la ku eegaya koob adduunka inay ismuujiyaanna u tafaxaytay, naadiyada waaweyn waxaad moodaa kuwo ka xiisa jabay oo aan shaqo ku darsanayn. haddaba daawade maxaad isleedahay way iska bedeleen koob adduunka ee xidigaha kacaanka suuqgeynta u ahaa, iyadoo haddana koritaan laba jibaaran ku yimid tiradii daawadayaasha tartankan? faalladaada xagga hoose noogu reeb, naguna soo bir haddaad nagu cusub tahay.